farmaajo oo muujiyay diidmadii ugu adkeyd kadib markii codsi la yaab leh uu ugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba muxuu ku aadan yahay diidmadaasi? Muuqaalkan ayay idinkugu soo gudbin doonaa dastuurkii muranka adag uu ka taagnaa maanta waa la ansixiyay. Sidoo kale golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale xildhibaanada isku sheegay inay yihiin kuwa xorta ayaa si adag ugu yimid. Xogaha soo dhameystiran ayaa halkan kugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena. Fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furso ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. Haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay laakiin inoo saar si uu gaaro asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno. xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta cod gacan taag ah waxay ku ansixiyeen dastuurka dalka iyadoona horey uu ahaa dastuur ku meel gaar ah balse maanta laga bilaabo uu yahay dastuur sax ah waxaana ee dastuurka maanta ansixiyay 222 mudane oo ka tirsan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. wax ka bedelka dastuurka ayaa waxay soo jirtiitamaysay muddo iyadoona uu ka dhashay khilaaf aad u xoogan oo sababay in lagu kala tago. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa arintaas darteeda looga mamnuucay inay xaadiraan golaha aqalka sare kala fadhiyadooda iyadoona xildhibaanadaas la magac baxay xildhibaanada xorta ah. hal mar waxaan isla daawanaynaa qaabkii oo ansixinta u dhacay. dastuurkii ansixintiis saasa dastuurkii Soomaaliyeed ansax ku yahay taariikh sharaf la taabteen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. waa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe uu ku dhawaaqay ansixinta wax ka bedelka ee dastuurka dalka. markana waxaan isla aadeynaa golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale xildhibaanadii laga mamnuucay inay xaadiraan kala fadhiga baarlamaanka kuwaas oo la magac baxay xildhibaanada xorta ah ayaa markaan si adag uga horyimid wax ka bedelka dastuurka iyo sidoo kale ansixintii maanta ay sameeyeen labada gole ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyagoona magaalada caasimadda ee Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id. hal mar waxaan isla daawanaynaa waxyaabihii ay ka yiraahdeen iyo sidoo kale fariinta ay u direen dawladda federaalk ee Soomaaliya. waa dastuur ay qabiiladii Soomaaliyeed ee colaadda sokeeye dhex martay ku heshiiyeen inay ku wada degaan oo ay reerka ku dejiyaan ilaa laga gaarayo muwaafaqo taam ah oo dastuureed duruufahan ay ka saamaxayaan hadday yihiin duruufaha siyaasadeed hadday yihiin duruufaha amni hadday yihiin duruufaha bini aadanimo hadday yihiin duruufaha siyaasadeed ee dalkaas ay ku heshii karaan. waxaan kaloo caddaynay in habraacii dastuurka lagu ansixinayo dhan la jebiyey iyo xeerarkii baarlamaanka oo maanta sida meesha laga sheegay 20 senatar iyo 101 xildhibaan ay ka maqnaayeen golaha sida la sheegayna la faafi doono magacyadooda taasoo macnaheedu yahay kooramkii laba meeloodka ahaa inuu jaban yahay asagani oo lagu ansixi lahaa dastuurka asagana waa jaban yahay. siyaasiyanna marka waa u jaban yahay oo maamullo sida la sheegay laba dowlad goboleed madax hore qaran oo madaxweynaha iyo wasaarayaal isugu jira hogaamiyaal siyaasadeed iyo waxaa ka maqan 50 xildhibaan ka badan oo loo diidaba inay baarlamaanka ka qayb galaan. waxaan kaloo ognahay in tahriib qardajeex laaluush guri ku garaac jabsi in lagu ansixiyo dastuurkaas marka kaas dastuur heshiis bulsho ma aha. hal midoo madaxweynaha uusan fahamsanayn waxaa waaye sida uu ku bixinayo xildhibaan inuu soo tahriibiyo ama mid uu hotel ka wato waa xildhibaan oo waqtiga intaas le ku bixinayo maamullo iyo madax hore iyo dad hogaamiyaal siyaasadeedna dan kama lihi oo leeyahay hadduusan dan ka lahayn muxuu xildhibaan u daba joogaa oo diyaarad khaas ugu dira. waa inuu fahmaa waxa ku qasba inuu xildhibaan diyaarad ugu diro ingeer ah ayadoo diyaaraddaas ingeerka ah ee 20 qofood oo maanta oon u dhimanaysa iyo ka badan biyo loogu shubi karo ma 200 oo qoys biyo loogu shubi karo. waxa ku kalifay yaa kalifaya dastuurka inuu heshiis ahaado. marka heshiiska aan ka hadlayno waa kaas dastuura heshiis lagu ahayn oo heshiis siyaasadeed ahayn oo xeerarkii iyo habraacii dastuurka uu qorayay iyo baarlamaanka aan waafaqsanayn kooramkii lagu ansixi lahaa aan waafaqsanayn kaas dastuur ma noqdo wuxuu noqonayaa keliya xaanshi meelaha la wareejinayo sharciyadna ma leh awoodna ma sii karo qofna. taas horta inaan ogaano inaan caddaynaan u baahannahay mowqifkeena. waxaan aad iyo aad uga xunahay dad hogaamiyaasha bulshada qaarkood oo caqdi ijtimaaci ah ama heshiis bulsho ee la jebiyey shahaad zuur ka sameeyey waa ayaan daro weyn
عقدك بلشدة أول الجبياه وشهادة زور إنها مرخاتي كنقط وواحد الآد يأترنتي لاقو حمار mana aha mas'uuliyad akhlaaqeed iyo mid diineed intaba waxaan rabaa kale inaan ku daro halkan hotelkan xalay waxa laga afduubtay nin siyaasi Ahmed Hurra laga afduubtay oo looga oo booliska dowladda federaalka ay afduubteen waa ayaan darro weyn waa dhacdooyinkiina soo maray oo dadka guryaha iyo hoteelada loogu dhacay maalin waa sheegay madaxweyne xasha kiridka uu sheegay jiray waxa kamid ah dad diyaarad kama dejiyo waa ka dejiyay hoteelo uma dhaco xal u soo dhacay maalinba midoo burinaya wuxuu sheegay jiray waxa dhiman kaliya inuu guryaha ugu soo weeraro taas kaliya u dhiman ayadana saasaanteedii nin leh oo ogyahay oo in laga diyaar garoobo ayada nafteeda u baahan doonta waa ayaan darro weyn inaa siyaasi deegaan kale ka soo jeego xamar ku afduubato waxay dhaleen ma taqaanin haddana Puntland ee siyaasiyiin deegaan ka soo jeegan afduubtaan ayagana xilligii is afduubashada waa laga soo gudbay waxa kale oo yaab leh in shirkadihii diyaaradaha maalin kasta lagu qasbayo dad rakaab inay dejiyaan oo sumcaddii iyo magacii lagu dheelay hay'adii rayidka ahayd ee dowlista ee sida ogtihiin ee baryada ah adduunka looga keen in hawadeena lagu soo wareejiso madaxweynaha wuxuu u turaaya ma laha diin dhaqan duruuf dad haysta nin wax xeerinayo u turaaya ma oo ayaan dar aad runtii weyn waxaan leenahay marka inta dadka Soomaaliya markii xataa colaadda socotay diyaaradaha iskala madageen intay colaadda socotay siyaasi lama afduubanay war dhaqan aan naqaano ma intay colaadda socotay isbitaal lama qaadanayn oo laga ma dhigaynin dhul dad la siiyay laga ma dhigaynin xataa mooryaanta waa ka xishoo jireen isbitaalada meesha wax la xiriirinayo ma jiraan saas daraadeed ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa saan ku sheegnay bayaanka in aan u wada istaagno badbaadinta dastuurka siyaasiyiin iyo maamulo kaliya ma saarna bulshada dhan ay saaranta sababtoo waxaan ku wada joogno haddii la burbuyino waxaan kala haadi lahayn horaan u kala haadna Soomaaliyeed waa ma santiin wasalaam xogaala u tiin maanta waxa ka dhacay baarlamaanka oo runtii wax aad looga xishooda ah bil ramadaan oo barakaysan dastuur umada ku heshiisay oo muddo la soo waday oo geedi socodkiisa oo socday in hab ka baxsan sharciga iyo dastuurka iyo hanaankii dawladnimada lagu ansixiyo runtii wax aad iyo aad looga xumaado dhaqankaana mid ku cusub ma aha laakiin maanta waxaan u dul istaagaynaa maanta waxa taagan wax la wada garan karo oo la wada arki karo waxa laga hadlayo waa kooramka wax kale laga ma hadlayo dad aan joogin iyo kooram aan joogin in dastuur lagu ansixiyo oo sida la idin sheegay 3-2 inay joogto ay tahay runtii arrintaas nasiib darro aan aragnaa waana dhaawac loo geystay ummadda Soomaaliyeed dawladnimadeeda laakiin waxaan hubaa ummadda Soomaaliyeed waa ka feejigan yihiin dadkii amaanada loo dhibay amaanada waa la kufeen waxaan aad iyo aad uga xunnahay iyadoo bil ramadaana in lagu mashquulsanaay waxyaabo diin ahaan aan banaanayn oo dawladnimo ahaan aan banaanayn in lagu mashquulsanaay dadkii abaaro u dhimanaya oo dhibaataysan in lagu mashquulsanaay aad iyo aad uga xunnahay tirooyinka waa la idin sheegay sida ay kala yihiin kuma noqonayo waxaan rabaa inaan dul istaago dhacdadii faasho xumeed ee halkan ka dhacday ku dhacday ninka mas'uulka ah ee hotelkiisa saqda dhexe loogu yimid runtii waa wax laftigeedu aan hore loo aqoonin oo aad iyo aad u xun wax laga naxa ah laga fajaca ah in booliskii Soomaaliyeed ee ahaay hay'ad garsoorka la shaqeysa ee cadaaladda inay xoojiso ay ahayd ay hotelka ugu soo dhacaan ay kala baxaan nin mas'uul oo la joogay xildhibaanadiisii oo loo ogolaa waay inay deegaanadooda ku laabtaan oo loo ogolaa waay inay tagaan baarlamaanka ay ka codayaan loo ogolaa waay inuu la joogo in dambi looga dhigo runtii aadan uga xunna marka waxaan ugu baaqaynaa booliska iyo dawladda xorriyadiisa si degdeg ah in loogu soo celiyo ayaan ugu baaqaynaa waxa khalad ahayd markii horeba in la soo celiyo oo laga soo celiyo deegaanadooda waxa khalad ahayd xalay in loogu dhaco waxa khalad ahayd xildhibaanadii is hor istaagay in la dhibaateeyo arrimahaasi waa arrimo dhaawacaya dawladnimada iyo geedi socodka nabadda ee Soomaaliya ku jirto intaas markii aan ka soo gudbo sida hortayba la sheegay dastuurku waa heshiis bulsho oo u baahan dhamaanteen inaan difaacno siyaasi kaliya ma leh waxa iska leh qof kasta oo Soomaaliya marka aan wada istaagno dhamaanteen dastuurka inaan difaacno dawladuna maanta waxay cadeysatay inaysan sharci aysan u tureynin midka ay hadda sameeyeen uma turi doonaan oo ma fuli doonaan maxaa yeelay sharciga uma socdaan laakiin waxa xaqiiqo ah
jabtar cusub in Soomaaliya uu ka bilowday dastuurkaas waxa loo bedelayo oo kooram la'aanta loo samaynayo ujeedooyin siyaasi ayaa laga leeyahay mar raba inaan sheego waa la arki doonaa laakiin ha loo diyaar garoobo sida la isaga difaaci lahay aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum sida isku buuxsama iyo nidaamka loo maro xildhibaanada ka maqan maanta meesha ayada mid maqan oo dibadda ku maqan iyo mid laga mamnuucay iyo qaar dowlad goboleedyadooda ay u yeerteenba ah ayaan halkan idinka sheegayaa Jubbaland waxaa ka maqan 33 xildhibaan oo golaha shacabka ah Puntland 25 South West 18 Galmudug 8 Somaliland 8 Hirshabelle 9 totalka dadka ayaga oo aan sheegnay xildhibaanada waa 101 markii laga gooyo 275 markii laga gooyo waxa soo horeysay 174 kuma buuxsanta kooranka dastuur lagu ansixiyo maanta waxa aan maqlahay dada ku muxuu ahaay online ku codeey qofka online ku codeynay oo koorankana ka maqan sidaas codkiisa ansax u noqon kara saddex nooc ayaa lagu codeeyaa oo xeer hoosaadka dastuurkaba ku qoran muxuu ahaay in codka uu yahay gacantaag oo qofka gacanta uu taago in sanduuq lagu codeynayo cod qarsoodi ah iyo in magac u yeel loogu codeynayo dhammaantiin saxaafadda maalin walba iyadoo la codeynayo ay joogi jirteen online wax la yiraahdo kuma jiraan qofka online ku codeynayo waa qof muxuu ahay ka maqnay kooranka qof kooranka ka maqnayna ma codeyn karo sida awgeed kooranka maanta gudoomiye ansax uu ka been sheegay waxaana aan rabnaa oo aan soo qoranay inaan adduunyada waadax ugu dhigno magacyadii xildhibaanada maqanna waa soo saaraynaa waana haynaa iyadoo lifaaqa ayaan ku soo daraynaa aad u mahad waxa lagu ansixiyay dastuur aan la isku waafaqsanayn aqalka sare kooramkiisa sina kuma buuxo dad baa codeeyay oo online ku codeeyay baa la leeyahay oo gudoomiye uu qirtay taasoo jabinaysa dhammaan habraacyada dastuurka lagu habraaca u ahaa iyo xeer hoosaadka labada aqalba aqalka sare waxa laga rabaa 36 kooramkiisa waxa buuxiya 36 sanatar aqalka sare waxa ka maqnaabaan marka rabaa inaan sheego waxa ka maqan 8 sanatar oo Puntland ah waxa ka maqan 6 sanatar oo Jubbaland ah waxa ka maqan 2 sanatar oo Galmudug ah waxa ka maqan 2 sanatar oo Koonfur Galbeed ah 20 sanatar ayaa sidaa ku maqan 2 sanatar oo Somaliland ah waa 20 sanatar 20 sanatar oo maqan waa laga been abuurtay ma joogaan magaalada way ka maqan yihiin 20 kaas sanatar oo anagu waa joognaa yani way ka maqan yihiin labada sanatar ee Somaliland Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Cabdi Xaashi way maqan yihiin anagu waa ka maqannahay sanatarada kaleeto ee waxa weeyaan maqan qayb baa cimro jirta qayb baa magaaladaba joogin oo hawlo geeri iyo wax qabsadeen soo sidee ku dhici kartaa in waxa weeyaan aqalkii sare kooramkiisii laga been sheego annaga taagan oo sheegayna xaqiiqada saxda oo jirta golaha shacabkana waa la tirinayaa insha Allah tacaala waana la sheegayaa xisaabta maqan biidnillah haddii aad daabatay muuqaalkan aragtidaadina ugu reeb markana waxaan aadaynaa hogaamiyihii sagaalaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta iska diiday inuu xaadiro kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kaasi oo maanta lagu ansixiyay wax ka bedelka cutubyo ka tirsan dastuurka dalka kaasi oo markii hore u ahaa dastuurku mirgaar ah warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xalay qadka taleefanka ay ku wada hadleen isla markaana Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynaha dalka uu ka codsaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xaadiro kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maadaama uu yahay xubin ka tirsan Farmaajo ayaa la sheegay in gabi ahaan buu iska diiday inuu xaadiro iyadoona maanta uusan ka soo dhex muuqanin golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya
waxaana arrintan ay keentay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ku qanacsaneyn wax ka beddelka dastuurka isaga oo weli aanan mowqifkiisa ka dhawaajinin halka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale xildhibaanada mucaaradka ay mowqifkoodii ka hadleen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa hadda lama oga inuu taageersan yahay wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kale inuu ka soo horjeedo maadaama ilaa hadda uusan afkiisii kala furin qoraalna uusan soo dhigin bartiisa. wixii xooga ay ku soo kordho muuqaaladeena xiga ay idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo shargale laag inoo saar si uu gaaro asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada.